السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan maanta ka hadli doonaa mowduuc runtii aad u xasaasiya oo taabanaya qalbiyada dhalinyarada Soomaaliyeed. mowduucaas ah maxaynu u cabsanaynaa why do we afraid? maxaynu uga cabsanaynaa inaynu guuleysano? maxaynu uga cabsanaynaa in fara badan inaynu dibadda u soo saarno fikra cusub? maxaynu uga cabsanaynaa in fara badan inaynu dibadda u soo saarno aragtiyaheena ku aadan sidii aynu u horumarin lahayn nolosheena? why do we afraid? maxaynu uga cabsanaa inaynu la macaamilo ama aynu runtii curino afkaar cajiiba oo inagu hagta dariiqa guusha? mar walba cabsi baa inagu jirta, cabsidaas oo keensanaysa inaynu ka istaagno dariiqa guusha inagoo ka cabsanayna marka qaar inaan fail garowno oo guul daraysano. why do we afraid? maxaynu u cabsanaynaa? why maxaynu u cabsanaynaa? su-aasha waa in badan la isweydiiyaa, waayo gar iyo gardarrabo waa xilliga aynu guuleysan lahayn. waxaynu nahay 27 jir, waxaynu nahay 25 jir, waxaynu nahay 22 jir, waxaynu nahay 20 jir, waxaynu ku jirnaa da'dii iyo waqtigii ay ahayd inaynu la nimaadno afkaar ama fikrado cajiiba oo inagu haga dariiqa guusha, inagoo usii dhex marayna dariiqa guuldarrada guusha. waayo ma jiro dariiq la yidhaahdo aan lagu guul daraysan oo lagu guuleystaa. mar walba waxaad isweydiinaysaa, armoo fail garooba, armoo guul daraystaa, armo waxaasaan ku khasaaraa, armo ay igaga timaada dacaayad iyo weliba in laygu aflagaadeeyo ama layla qaadan waayo afkaarta iyo fikrada. cabsi badan baa inagu jirta. sideedaba ma ogtahay cabsidu inayna ahayn inay tahay wax aan la taaban karayn. cabsidu maaha shay nool, maaha wax kaa hor imanayo ku cunaya. cabsidu waa shay kamida la dareemo, waa la dareemaa oo keliya ee maaha cabsidu shay adiga kugu soo aadan oo kuliqaya ama ku cunaya maaha. waa inaad in fara badan ogsoon tahay sideedaba cabsida inaad soo qaban karta gebigeedaba oo aad la sheekaysan karayso. maxaa tahay cabsiyey maxaa tahay? cabsidu waxay odhanaysaa markaa cabsi haddii aan ahay waxaan ahay waa shaygan aad maanta hayso, waa shaygan aad maanta isku dayday laakiin aad qabatay, waa shaygan maanta aad bilowday laakiin aad ka gungaadhay. laakiin cabsidu haddii ay kaa tanbadiso oo ay ka adkaato waxay ku leedahay waa shaygaad halkaa usoo fuuli kari laaday, waa shaygaad koobka ugu guuleysan kari laaday, waa shaygaad fooqa intaad buurta intaad fanato dhakadaad ugu iman kari laaday. mar walba cabsida waxaa ka badiya qofka guuleysta, sababtoo ah waxaad isku dayday wixii hobbigaaga ahaa, waxaad in fara badan aad juhdigaaga iyo dadaalkaagiiba aad gelinaysaa sidii adigu aad u noqon lahayd guuleysta dhaba. haddaynu mar walba isku dayna inay noqono guuleysta dhaba, waa hubaal dariiqa guuldarradu inuu noqonayo dariiq lagu barto oo waayo aragnimo iyo khibrada laga qaato oo keliya, laakiin aanu noqonayn wax inaga ina dila ama ina cabsi geliya amaba ina joojiya. sideedaba hore la isku weydiiyo la yidhi waa maxay guuldarro? guuldarradu sideedaba wax guuldarro la yidhahdo ma jirto. waxaa la weydiiyey Thomas Edison, ninkii alifay inta badan iftiinkaynu iftiinsanayno ama laydhka. ninkaas ayaa su-aasha la weydiiyo la yidhi Thomas Edisonow waxaad guuldaraysatay 9999 jeere, maxaad u guuldaraysatay? magaasuu now waa khalad su-aashaas, sababtoo ah ma jirtaba waxa la yidhaha guuldarro, laakiin waxaa jirta wax la yidhaahdo isku day, trying, isku day. waxaan ogaaday buu yidhi 9999 oo jeer oo aanu laydku sidaa ku shidmin, iftuunka aanu sidaa ku iman, laakiin aan ogaaday dariiq ka duwan buu ku yimaadaa. ka warrama buu leeyahay haddii aan isdhiibi lahaa, ka warrama buu leeyahay haddii aan joojin lahaa, ka warrama buu leeyahay haddii aan maalintaa odhan lahaa waad fail garowdee ha ku sii soconin, meeshan booraan baa ka qodane, maanta miyaad iftiinka heli lahaydeen, maanta miyuu nuurkaas iman lahaa, maanta miyaa miyay sii qaadan lahaayeen oo dadyow kaloo fara badani ikhtiraacayga inay wax kusii dardaraan sii qurxiyaan. ilaan isagu waxa uu curiyay oo keliya waa laambad iyo electric inuu shidmi karo, laakiin in modernize la casriyeeyo oo teknolojiyadan casriga la geliyo oo layd ka qurux badan yahay inuu helo oo guryaheenu iyo xafiisyada inoo iftiimaan, rag kale ayaa kusii daray oo dadaalkaa sameeyey. haddaba ogow, guuldarraysto, caadaysta guuldarrado inaanay jirin wax la yidhaha guuldarro, laakiin ay jirto iskuday guuleysan waaye, iskuday halkii la doonayay gaari waaye. laakiin mar kastoo aad wadiiqada wax ka bedesho waa mar kastoo aad u dhowaanayso qaybta guusha. haddaba su-aasheenu maanta waxay tahay waa maxay sababta adiga dib kuu dhigaa? waa maxaad shay walba dib ugu dhiganaysaa in fara badan adigoo maanta qaban karaya, adigoo maanta guuleysan karaya? waa maxay shayga la yidhaahdo cudurdaar? inaad mar walba cudurdaar u samayso guushaada adigoo keeni karaya guldahaaga. waxaynu nahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo u ooman in fara badan in lagu daydo, in fara badan inay noqdaan role models, in fara badan inay noqdaan dad ka jiba keena hibadooda shakhsi,
dibadda aynu usoo saarnay hibadeena waa qarsoon tahay oo way aasan tahay, laakiin waxay ku qurux badan tahay inaynu dibadda keenno si ay dadyo kaloo fara badanna uga faa'iidaystaan, innaguna aynu u noqonno lagu dayde laga qaatay tusaale wanaagsan. waxaa inoo ballana inaynu cabsida joojinno. ballantaynu waa cabsi joojin, waa isku day wanaagsan, waa ku celcelin in fara badan si aynu uga takhalusno waxa la yidhaahdo dib u dhigashada. waa mahadsantihiin. sidaas iyo inaynu isku dayno oo try garayno awoodaheena, fikradeenna aynu curino oo ay noqoto sanadkan 2021 iyo wixii ka dambeeyaba sanad aynu inagu iska lahayn oo guulo badan aynu soo xereynay. waa mahadsantihiin.